adduunka la leeyahay waxbay yaqaanaan dhammaantood haddii la yidhaahdo maxaad rabtaan maxaad u dadaalaysaan maxaad doonaysaan maxaad niyeysan tihiin intuba dhammaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa nolosha adduunyadana gaaban inay noo hagaagto khasaaro ma rabaan shar ma rabaan masiibo ma rabaan dhib inay arkaan ma rabaan wanaag bay rabaan wanaag waa dabiicadda bini aadamka ilaahay ku abuuray inuu qofka bini aadamku mar walba wax fiican inuu jeclaado wax wanaagsan nolol wanaagsan shaqo wanaagsan reer wanaagsan ubad wanaagsan dawlad wanaagsan shacab wanaagsan dad wanaagsan dal wanaagsan qof wuxuu rabaa adduunka ma joogo qof walba wuxuu rabaa wanaag buu rabaa marka wanaagga bini aadamku ay doonayaan oo dhan ilaahay baa haya cid kale ma hayso yaa haya ilaahay baa haya qul inna alkhayra kulluhu lilah biyadihi alkhayr wa huwa ala kulli shayin qadiir khayr oo dhan gacanta ilaahay buu ku jiraa gacan kale kuma jiro bini aadamkuna maadaamuu khayr doonaayo khayrku meesha uu yaalay caqligiisa ku garan kari maayo lidaalika ilaahay jalla wacala bini aadamka bashariyadda caqligooga kuma dayna cilmi baa ilaahay soo raaciyay cilmi kutub anzala alkutub wa arsala alrusul raxmatan minhu jalla wacala ilaahay jalla wacala isagoo bini aadamka u naxariisanaya oo khayr la damacsan oo khayr la doonaya ayaa ilaahay bini aadamka wuxuu u soo dejiyey kutub ergana ilaahay jalla wacala waa soo diray ergo rusul markaasaa bini aadamka la leeyahay khayr ma rabtaa rususha raaca wanaag ma rabtaan kitaabka ilaahay soo dejiye raaca wa anna hada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tattabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilihi dalikum wasaakum bihi lacallakum tattaquun dariiqaasaa ilaahay leeyahay mara dariiqa alislaam dariiqa nebiyadu ay mareen calayhim asalaatu watasliimaat markaasaa basharka dhanba shakhsiga ugu horreeyey ee bashariyaddu ay ka bilaabantayba ilaahay jalla wacala nebi buu ka dhigay abulbashar wuxuu ahaa aadam calayhi salaam aadamna wuxuu ahaa nebi buu ahaa nebi lama dhihin maaragtaane wasiir buu ahaa lama odhan boqor buu ahaa lama odhan baylood buu ahaa lama odhan taajir buu ahaa lama odhan maaragtaane injineer buu ahaa laakiin nebiy aadam calayhi salaam wa kaana nebiyan aadam calayhi salaam nebi buu ahaa nebina waa maxay sifadiisu ilaahay inuu adeeco mooyaane shahawaadkiisa iyo naftiisa nebiguma adeeco abulbashar aabbaheen kii aan ka bilaabannay ee adduunyada inaan imanna sababta u ahaa ilaahay jalla wacala waxau ka yeelay nebi nebina sifada lagu yaqaano waa maxay waa mid ilaahay jalla wacala uu doortay oo ilaahay cismo uu siiyey oon marna ilaahay aan caasiyeyn inuu ilaahay adeeco maana ilaahay nebiguma caasiyo hadalkii ugu horreeya nebi aadam calayhi salaam afkiisa ka soo baxayna wuxuu ahaa alxamdu lilah aadam calayhi salaam ereyga ugu horreeyay arlada markii la keenay uu ku hadlayna wuxuu ahaa rabbanaa dalamna anfusana saddexdaasaa la doonayaa bini aadamku inay ka dhexeeyaan saddexdee nebiga raac nebiga ku dayo dariiqa nebiyada mar dariiqa nebiyadu waa maxay waa dariiqu lhudaa waa hanuunka raaca weeyaan haddaad hanuunkaaga raaci weydidna hawadaadaad raacaysaa fa amaa man tagaa wa aahara alxayaata addunya fa ina aljaxiima hiya alma'wa fa amaa man tagaa qofka qooqa ee kibra ee noloshan yare adduunyada ee gaaban aakhiradii weyneyd ka doorbitay ka qaata baa ilaahay leeyahay ee naftiisa hawadeeda raaca kaasi halka uu ku dambaynaya baa ilahay waa jaxiim wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa cani ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa wa amaa man khaafa maqaama rabbihi qofka ka baqa la kulanka ilaahay jalla wacala adduunyadan ilaahay ku keenay ayaa hadhowtoo aad la kulmi doontaayoo ku xisaabin doona wanaha annafsa cani ilhawa naftiisu waxay doonaysana ka weecda u diida naftaada ha adeecin caabudaha noqona waxaad noqotaa alla caabudo noqo fa ina aljannata hiya alma'wa baa ilaahay yidhi halka uu ku dambaynaya waa janno qofkaas addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam adduunyada waa qofka mu'minka jeelkiisii weeyaan kaafirkana waa jannadiisii maxaa kaafirka janno adduunyada looga yeelay baa la yidho qofka kaafirka ilaahay aan garanayn wujuudkiisa aan garanayn aakhira inay jirtana ku xisaabtamaynin adduunyadan intuu jooga isaga waxba ka xaaraan maahine waxa uu doonu adduunyada ku samaynayaa isagu waxa uu doonu ku dhagaysanayaa waxa uu doonu ku cunayaa
meeshuu rabuu marayaa waxau doonuu maqlayaa siduu doonuu u soconayaa leanna jannadiisii waa halkan jannadiisii waa halkanoo shahawaadkiisi waxay naftiisu ay jeclayd oo dhan halkanuu ku gudanayaa laakiin hadhow markuu dhinto isagu jannadii buu ka baxayoo naartii baa lagu tuuraya walciyaadu billaah ama qofka muuminka ilaahay ka baqaaya isagoo hawadiisa ma raacayo halkan shahawaadkiisa ku gudani maayo halkan waxa uu raacayaa hanuunka ayuu raacayaa ilaahay caza wajalla amarkiisuu raacayaa amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu raacayaa waxay shareecaddu ay fartay buu la imanayaa waxay shareecaddu ka reebtayna uu ka reebtoonaanayaa deedna hadhowtoola markuu dhinto waxa uu ka baxayaa markaa jeelkii buu ka baxayaa deedna markaa jannadii buu galayaa qofka waa la xidhay marka la yidhahdo maxaa laga xidhaa qofka balii sheega waa la xidhay waxaa laga xidhay ikhtiyaarkiisii baa laga xidhay ikhtiyaarkii baa laga qaaday moobeelkii baa laga qaadayaa oo dharkii baa laga qaadayaa oo dhar gooniya ayaa loo xidhayaa oo qol baa lagu xeraynayaa oo saacadaa laga soo daynayaa saacadana waa lagu xeraynayaa toddobaadkiina hal maalin baa laga yaabaa inuu ehelkiisa mid mid u qaabilaa laga yaabaa markaana waa la soo xeraynayaa waxau qofkaa ka xidhan yahay waxa weeyaan waxay naftiisu ay jeclayd baa laga xidhay qofkaas markaa ninka jeel ku jira waxa weeyaan hamigiisu aqal dhisa ka fikiri maayo guurso ka fikiri maayo adduunye ka shaqee ka fikiri maayo baayac mushtar ka fikiri maayo ninka jeel ku jira hamigiisu waxa weeyaan jeelkan goormaan ka baxayaa buu leeyahay bas isagu marka muumin qofka muuminka waxa uu nebigu leeyahay adduunyada intuu joogo jeel buu ku jiraa waa maxay muuminku adduunyada intuu joogo waxa ay naftiisu ay doonto macnaha u yeeli maayo weeyaan waxa ay naftiisu ay doonto maqashiin maayo waxay ishiisu doonto u ogolaani maayo waxa carabkiisu doona ku hadli maayo waxay calooshiisu doonto siini maayo sida uu rabo u soconi maayo waxa uu doona eegi maayo waxa uu doona ku hadli maayo meeshuu rabo fadhiisani maayo meeshuu rabo dhaqaalaha ku bixini maayo waa addoon ilaahay tabaaraka wa tacaala 60 sane adduunyada uu joogo waxa uu ku shaqaynayaa muraaqaba maca allahi caza wajalla waxa uu leeyahay ilaahay bay arkaayo aniga i maqlaaya marka jeel buu ku jiraa isagu deedna muxuu ka fikirayaa maadaamuu adduunyada dusheedii qofka muuminku uu hawadiisii ka weecday uu hanuunka raacay amarka ilaahay maadaamuu raacay uu amarkii naftiisa ka soo hadhay amarkii rasuulka markuu raacay amarkii shaydaanka markuu ka soo hadhay hamigiisa ugu weyn qofka muuminka waxa weeyaan goormaad jeelka ka bixi doontaa jeel baad ku jirtaa bilaal radia allahu canhu bilaal alxabashi radia allahu canhu maalintuu dhimanayay ee sankaraadkuu qabtay ayay islaantiisu dul barooratay ku tidhi waa xasrataah waa xasanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqino ha igu dul balanbalino ha igu dul qaline waxaad tidhahdaa quulii waa farxataah waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi markaasay ku tidhi maxaan ku farxa sawdiga iga dhimanaya maa wuxuu yidhi hadan nalqa alaxibbah muxammadan wa saxbah anu baritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed uu galay baan galayaa buu leeyahay limaada lianna bilaal radia allahu canhu mubashir biljanna buu ahaa mubashir biljanna habeenkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam micraashka markuu soo noqday nebigu waa kii ka yidhi bilaal innii samictu dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhoodii ayaan jannada hortayda ka maqle maxaad igaga badisood halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu yidhi yaa rasuul allah anigu waxaan laazimaa tahaaradda ayaan laazimaa meesha weysadu ay igaga jabtana waan ku weyse qaataa deedna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaa buu nebigu ugu jawaabuu ku yidhi haadihi hiya alatii balaqadka ta aad maqaamka ku gaadhay waa weyse qabka aad laasimtay iyo markaad weyse qaadataan labada ragcadood ee tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taabuu rasuulku yidhi walaalayaal qofka bini aadanka waxa darajadaada kor kuu qaadaya ee qiimo kuu yeelaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxa qofka bini aadanka kor u qaadaya waa iimaankii camalka saalixa man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica qofxuusiyey usiika yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii duburi kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid
ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacadaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nebigu ma siinayo ninka uu jecel yahay adduunye ma siinayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam shakhsiga uu nabi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa khasaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayu nebigu siinayaa walaa adri habeenkaa mucaad binu jabal kayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqra'a calayka lam yakun aladiina kafaruu wasamaanii buuhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay baa kule ubay bnu kacab waaniga ugu akhrista fiicna qur-aanka ilaahay ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubay bnu kacbow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akhriyo adiga dushaada suuratu lbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu hi wasamaanii ma rabbigay ba aniga i magacaabay markaasuu hi haa subxaana allah farxadduu ku seexda habeenkaa saxaabigaasi bal ka warraba tasawaruu takhayaluu bal ka fikira ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxamed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubay bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay baa i magacaabay haa fabakaa ubay farxad buu la ooyey farxad yabkuun min shiddat alfarax maxaa dadka ilaahay ku jeclaaday hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwadooda may raacin shariicadday raaceen baatilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada inaku maanta aan haysanno een inakuna maanta aan ku abtirsanayno unbay ka run sheegeen bas diintu waa diintii salaaddu waa salaadii qur-aanku waa qur-aankii xadiidku waa xadiidkii qibladu waa qibladii soonku waa soonkii masaajiddu waa masaajidii xaggay u jeesanaya baan u jeesanaynaa suuraddii faatixadii akhrinaya baan akhriyaynaa laakiin qulubtaa isbedeshay maanta maxaa isbedelay qulubta isbedeshay hada ubay bnu kacab وهذا معاذ بن جبل وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين جبريل عليه السلام أيا سمالا كسو دادقيا مكو إمنيا وحكا لو مسعدو وحكا لمسدو صلاني بشارو سدا أيو سدا خديجة سدا رضي الله عنها أم المؤمنين يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعدو الشكتا الله السلام كان سلام وقسدا وعنا لو بشاري وبشاري قصر جنة كويا اللي قلي دونتا قصر ومركي قشنا وحصا وحنا يلغوي يقيلوها بيراتي أيسا مغلي دونين با لو بشاري وبشاري بوكيدي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم